bartamaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland waxaa dhacda magaalo xeebeedka Kismaayo taa oo ku taalla koonfur bari Soomaaliya gaar ahaan xeebta badweynta Hindiya waana magaalo howleed aad u mashquul badan oo ku caan baxday ganacsiga mashquulka ganacsi buuqa iyo howlmaalmeedka bulshaweynta ku nool magaalada waxaa ku hoos jira sheekooyin naxdin leh oo ku saabsan bukaanada la nool cudurka HIV kuwa oo la kulma takoor kuna xabisan duni ayaga u gaara oo ay kula nool yihiin ceebayn dhaawacyo maskaxeed oo loo geysto iyo in laga fogeeyo xitaa qoysaskoodii ugu dhowaa xaaladda haysata ee cudurka HIV awgeed waxaan la kulmay Shukri Xaaji Cabdalla ma ahan magaceeda saxda ah balse cabsi takoor awgeed ayaan u qarinay Shukri da'deedu waa 30 sano jir waana hooyada 5 caruura waxay la nooshahay fayraska HIV ayadoo qaadata dawooyinka dhima halista cudurka 5 caruur ay haysato Shukri ma qabaan cudurka oo waxa ay dhashay ka hor inta aysan qaadin fayraska hooyadan 30 sano jirka ah ay haysata 5 caruurka ayaa la qalbi jabtay warbixin argagax leh oo ku saabsanayd baaritaan lagu sameeyay oo laga helay fayraska HIV muddo ay sariir saarneed kadib ayadoo loo sheegay inay qabto HIV kadib markii ay soo baxday natiijada baaritaan ay iyadu go'aansatay oo ku saabsanaa in laga baaro dhiigga guud oo qayb ka ahaa cudurka HIV balse natiijadii baaritaankeeda ayaa ahayd mid ay naxdin la dhigagtay aniga ku nool TB ugu dhacday TB markaan aaday oo 4 bilood daawooyinkii aan isticmaalay 4 bilood daawooyinkii waan qaadi waayay marka 4 bilood markii oo daawooyinkii aan qaadan waayay waxa ugu yiri aan ma jeceshahay inaa dhiig guud aan ka qaado mar walba xanuun hor laha sheeganaysa haan wallaahi markay oo dhiigaas iga qaaday 12 saac markay ahayd ayaa waxa ugu yiri wax baan ku sheegayaa maskaxdaada inaad dejiso ayaan jeclahay oo tashuush isku furo maxaa waayaan adii horta isdejiyaas taada kalena waxaan ilaaha keenay ilaahana bixin kara marka is mashquulin maskaxdaada hadii tashuush ku furto inaad waalidid oo u dhowdahay markii aan dhahay maxaa ka mid yahay walaalo wax ii sheeg neefta ay celcelin ana xanuunsanay markaan dhahayna waxa ugu yiri cudurkii oo waxa qabta HIV wallaahi waan naxay horta markaas iigu sheegay waan naxay ilinta meesha iiga soo daadatay markaas wuxuu yiri waxaan hadda kala hadlay ka mid tahay marka ilinta iska tirtir qof adiga ku kalsoon tahay u sheego dhibkaaga laakiin dadka oo dhan ha u sheegan qof adiga ku kalsooneen sirtaada u sheegan sida ay noo sheegtay Shukri waxay xanuunka ka qaaday odaygeeda kaasoo ay kala tageen kadib khilaaf qoys oo salkiisu ahaa fayraska HIV ee laga helay Shukri sanad kadib natiijadii baaritaankeeda waxay sheegtay in odaygeedii hore uu diiday inuu isbaaro isagoo ku eedeeyay in cudurka ay ka keentay meel kale wallaahi aniga nin oo isqabnay markii oo daawooyinka aan qaadan jirnay intaan isguursanay waa caafimaad qabay markaan isguursanay aniga xanuun baa iga bixi waayay marka aniga sidii xanuunsan haddana TB-da la ii gudbiyay markii oo cudurkan la igu sheegay ayaa waxaan ku iri walaalo aniga hadda maasha Allah ahay xamaraan ka imaaday daawooyin oo soo qaatay adna meesha shalay ani aan iska baar adna caafimaadkaaga ku jirto markaas ugu yiri cudurka adaa wadata aniga wax aan qabo malahan maalin walba isbaara wax aan qabo malahan cudurka adaa wadata dhinaceeda marka waxaan dhahaynaa dii oo aniga kaniinka dii adiga qaadanayso oo ninka uu qaadan waay waa dhibaato marka digtaarka duusaas ugu yiri oo asagana ugu dhaay ma aaday baaris ma aaday madaxayga siyaan sidii aan ku kala tagnay waxay inoo sheegtay inay soo martay marxalado adag oo dhanka nolosha oo ay ka fogaatay bulshadii ay ku dhex jirtay laguna qasbay inay guryo badan isku marto xitaa mararka qaar xoog looga saarayay
guryo ay kira ahaan ugu jirtay sababo la xiriira fayraska HIV ee laga helay. Shukri waxay hadda isticmaashaa dawooyinka HIV-ga oo laga helo isbitaalka guud ee Kismaayo qaybtiisa VCT-ga ee lagu daweeyo xanuunka. Dawooyinkan ayaa xakameeya cudurka iyagoo la dagaalama fayraska inuu ku fido jidhka qofka qaba. Marka uu qofku toos u qaato, waxa ay dhimaan khatarta cudurka iyagoo awood siiya difaaca jireed ee qofka la nool fayraska. Shukri Maxamed waxay inoo sheegtay dawooyinka ay toos ku isticmaasho inay u suuragelisay inay howlaheeda qabsato ay caafimaado. Waxay intaa ku dartay inay aad uga wanaagsan tahay sidii ay ahayd ka hor intii aysan bilaabin qaadashada dawooyinka. haddii fayraska HIV uusan qofku iska baarin, wuxuu isu beddeli karaa cudurka dilaaga ah ee AIDS, kaasoo baabi'iya difaaca jirka aadanaha ee cudurrada. Xaliima Maxamed ma ahan magaceeda saxda ah, waa bukaan kale oo la nool fayraska HIV. waxa ay siday fayraska muddo 5 sano laga joogo. waa hooyo haysata 2 carruur ah. waxay inoo sheegtay in cudurka ay ka qaaday odaygeedii hore, kaasoo u dhintay cudurka AIDS-ka. wuxuu sidoo kale qabay 2 xaas oo kale, kuwaa oo iyagana sababsaday isla cudurka. geeridiisa kadib waxay go'aansatay inay iska baarto HIV kadib markii ay bilooyin sariir saarnayd. xanuun iga bixi waay cunto macunaayi waa maanta dhan waa jiifaa, ilmihii waxba uma qabsan kari, kastoo waa iska xamaalan jiray, dharaan iska wareejisan jiray, baatiyaalaan iska wareejisan jiray, waan aboodi waay. marka dib waan xanuunsaday, waan shaqaysan waay, jirida iga bixi waysay. intaa ka baxay istaalka weynaan aaday, waa la isoo baaray, cudurka waa iskaga shikiyey, waan aaday. markaan aaday waa laga soo helay, maadaama odaygu uu dhintay oo gabar kale ay dhimatay oo cudurkaas haddana laga helay oo odaygana uu qabo uu haddana uu dhintay, waan iska shikiyey. Xaliima Maxamed oo da'deedu tahay 28 sano jir waxay inoo sheegtay in hooyadeed ay dayrisay kadib markii ay ogaatay natiijada baaritaankeeda, kuna qasabtay in ayada iyo 2deeda carruurta ay guriga isaga guuraan, kuna noolaato meel ka fog hooyadeed oo garab iyo gacal buu ahayd. waxay inoo sheegtay in takoor ay kala kulantay bulshada, guryo badanna laga saaray cudurka ku dhacay awgii. horta hooyaday way joogtaa, hooyaday way isoo bursay, guriyay leedahay. aniga ciyaalkaygu banaanka noo soo dhigay 10 guri baan maray xaafadda, dalxiiskan aan deganahay. intaasoo gurina waa marhayaa, kir wax iga bixinay ma lahan. dhar dhaqo waa aadaa, subax walba guri walbaan qaraacaa, dhar dhaqo maanta waan soo heli, beri waan wayni. ana waa idin soo xamaali ilmahan haayaan dhah. ilmihii waxay idhahdeen ma hayn kari, ani adaan ku dhal, adaan ku soo kariye, ilmahaadina kuuma haynay. bacdi hooyo waa ila noqon weysa, ilmihayga waan qaatay guriga kale. markaan degana waxaa liilay gabadhii HIV-ga cudurka qabta way tan. nolosheedii hore ee farxadda badnayd ayay sheegtay in mar qura ay isrogtay oo ay la noqotay sida nolol ay riyo ku aragtay, kuna qasbanaatay inay ku noolaato duni cusub oo iyada u gaara. waxaana arrimahaasi oo dhan ay ugu dhaceen xaaladda ay ku sugan tahay ee cudurka HIV. Ismaaciil Faarax ma ahan magaciisa saxda ah, waa aabbe 50 sano jira, haystana 3 carruur ah oo ku nool magaalada Kismaayo. waxa uu la nool yahay fayraska HIV, kaasoo sida uu sheegay sanaddu markay ahayd 2010 ay u gudbisay xaaskiisii hore oo cudurka AIDS-ka u dhimatay. nasiib wanaag 3 carruur ah oo uu dhalay Ismaaciil waa ay ka badqabaan cudurka. waxyar kadib markii uu ogaaday inuu haleelay HIV, Ismaaciil Faarax waxa uu bilaabay olole wacyigelina oo ku saabsan fayraska HIV. waxa uuna noqday qareen u dooda dadka qaba HIV. Ismaaciil waxa uu ka duwanaa dadkii kale aan la kulannay cudurka haleelay. waxaa ka muuqata kalsooni, mana ka cabsado takoor inuu kala kulmo bulshada. waxuu inoo sheegay inuusan marna la dhuuman xanuunka uu qabo, isagoo aaminsan in HIV la mid yahay xanuunnada kale, aysanna ahayn in dadka qaba ay bulshada ka dhuntaan. waxa uu rajo geliyaa dadka uu haleelay cudurka, isagoo uga warrama waayo aragnimadiisa intii uu la noolaa fayraska, kuna dhiirigeliya dadka kale inay ka feejignaadaan cudurka si uu qayb uga noqdo in la helo duni xorka ah AIDS-ka.
أرتنيو برنامج كان HIV قدتك أيديس وحنا يرادو يا دبر كذا نبض dadka markay AIDS maqlaan waa qof ilmaha waraabo lagu sheekeeyay wiilmeena arka waraaba way ka baqaan marka stigma waxa laga qabaa markii AIDS la soo qaado magacaas ah in dadka ay markaaba ay dareemaan wax aad oo xun oo naxdin leh oo murugo dadka tiiraay ku beeray marka qofka Soomaalida ma wacyi gashado marka xanuunkan waa xanuun caadi ah wuxuu u gudbaa laba nooc waaye herbal mar wuxuu joogaa HIV qofka markuu positive noqdo HIV uu joogaa markuu dhaca difaaciisa oo dhamaado oo heerka labaad u gudbo oo AIDS gaaraya AIDS lagama kaco waa loo dhintaa laakiin maxaa celinaya levelka daawada celinaysa la qaato ee ART-da marka waxa weeye dadka waxay ka qabaan marka stigmaas ka qabaan marka bulshada marka tira HIV la noolahay HIV ma yaqaanin AIDS ka yaqaanin waxa ku soo hormaray AIDS Ismaaciil Faarax waxa uu sheegay in bulshada aysan xog ogaal u ahayn cudurka HIV AIDS wacyigelin la'aan iyo fahamka cudurka ee bulshada dhexdeeda oo yar awgeed ay keentay in argagax laga qaado qofka la ogaado inuu cudurku ku dhacay taasoo uu xusay inay caqabad ku tahay dadaalada lagu yareynayo faafitaanka fayraska marka qofka inuu HIV leeyahay dadka caadiga noqon karo oo cuntada la cuni karo oo dharka la xiran karo oo la seexan karo oo ilmo caafimaad qabo oo dhalin karo oo guursan karo oo ganacsan karo oo darawal noqon karo oo diyaarad wadi karo ma aaminsano waxa ka yar marka aqoon la'aan marka dadka maadaama bulshadeena aqoon la'aan jirto marka in la wacyigeliyo u baahan tahay wacyigelintaasna waxa u baahan koow festival inay ka qaataan madaxda waraysa culimada diinka number 2 madaxda wadanka mas'uuliyadda qaaday number 3 dhaqaatiirta number 4 wariyaasha dadka warkooda la maqlaayo caaqiliinta ama suldaanada ama nabadoonnada marka intaas ka qaataan bulshadeena kaleeto ayaa wacyigelinta dhinac ka wadi karna konton sano jirkan u oleeya caawinta dadka uu ku dhaco fayraska iyo ka hortagidiisa ayaa kaliya yoolkiisa ka dhigan inuu ka sheekeeyo taariikhdiisa balse waxa uu ku dhiirigeliyaa kuwa kale inay ka sheekeeyaan tooda isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo waxa uu ka mid yahay goobaha laga helo adeegyada caafimaad ugu muhiimsan guud ahaan Jubbaland isagoo u adeega in ka badan 350,000 oo qof isbitaalka waxa uu leeyahay qayb bilaash ah oo qaabilsan baaritaanada ila talinta taasoo bixisa dawooyinka fayraska HIV ee ka hortaga inuu jirka qofka qabo waxyeeleeyo iyo sidoo kale qaybta hooyada iyo dhallaanka oo ka hortagta in hooyada qabta cudurka ee uurka leh laga badbaadiyo ilmaheeda yar si aysan ugu gudbin fayraska Guuleed Maxamed Axmed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha qaybta la talinta iyo baaritaanka isbitaalka Kismaayo inuu u adeego tobanaanka qof ee doonaya in laga baaro cudurka ee qaybtan waa mid ka mid ah shaqo maalmeedkiisa Guuleed Maxamed ayaa sheegay in wadarta 9 qof oo laga helay HIV AIDS ee magaalada Kismaayo oo diiday inay qaataan dawooyinka cudurka ay geeriyoodeen wuxuu intaa ku daray in guud ahaan 60 qof oo qabta cudurka HIV ay hadda toos xarunta uga qaataan dawooyinka ka hortaga in cudurku waxyeeleeyo caafimaadka qofka qaba waxa uu sheegay in dawada cudurka oo toos loo qaato ay ku caawinayso qofka cudurka qaba in ay sare u qaado noloshiisa iyo caafimaadkiisa programkan wuxuu ka kooban yahay ilaa 3 qaybood qayb waxa weeye waa VCT anaa ku shaqeeyo oo VCT counselor ahay qaybna waa ART qofka programka soo galo daawada meesha ka qaatay follow up kiisi dhaqaatiirta meesha kala socdaan qaybna waxa la BMTC waxay ku dhaxtaa qaybta hooyada hadda kan inta hadda daawada qaadato waa adiga taqriiban 58 daawada qaadato oo garaadeen counselinka care-ki ku jiro oo daawada qaato oo xaaladooda caafimaad aad u fiican tahay inta kala soo hartay 20 iyo dhowr ka mid ilaa 20 iyo 3 ama 25 amareyna waxa waaye dad gobolkan deegaan u ahaayeen oo meelo kale ka qaadanay daawada maadaama xarunta inta laga furay waxay door bideen in deegaankooda ay daawada ku qaataan saasana ugu imaaday qofka difaaciisa lumaayo maadaama difaaciisa lumay daawadii difaaciisa ku ilaalin lahaydna uusan qaadanaynin
qofkaas waxay keenaysaa xanuun walbo inuu u nuglaado allah ka dhigay hargabka inuu adkeysan waayo uusan soo dhin daawadan waa daawada ugu dambeysay oo latest adduunka hadda caalamka laga qaato qofkan hadduu daawada qaato si joogto u qaato oo waqtigeeda iyo saacadii loogu talagalay uu u qaato uu kala goonin waxaa macquul gal qofkaas separation inuu noqdo ama virus jiris ku jiro inuu low noqdo. deeqo waxa ay madax ka tahay qaybta hooyada iyo dhallaanka isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo waxa ay bixisaa adeegyo looga hortagayo in hooyada uurka leh ay qabta cudurka u gudbisa caruurteeda taasoo dhici karta xilliyada uurka dhalmada iyo naasnuujinta. waxaan u imaadaan maamooyin uurey ah iyo maamooyin oo fool ah isbitaalka oo adeega u qabano maamada uureyda markay noo imaato waa u sheegnaa waxaan u sameynaa counseling waxaan ka qaadnaa badanaa dadka awal weydiin jireen laakiin hadda aaday u ogol yihiin baaritaanka waa loo sameeyaa waa laga qaadaa kow intaanan qaadin ka hor qofka waa inaa ogolaasho ka haysana isaga uu ogol yahay counselinkaas marka u sameyno waa ka qaadnaa way ogolaadaan haddii jawaabta usoo positive ay noqotona waxaan u sheegnaa maxaan ku dhahay boostasani counselna u sameynaa iyo haddii negative ay noqoto labadaba waan sameynaa qofka hadduu positive noqdo inuu maxaan ku dhahay iska ilaaliyo dadka uu la noolaay iyo bulshaweynta kaleentaba sida maamada markay cuntada diyaarinayso kaleenta mindiyaha haddii hilibkoo kaleenta ay jajarto mindida meel fiican ilmaha ay ka dhigatay aysan ilmihii u dhiibin maxaan ku dhahay iyo meelaha dadka si ku faafin lahayd ay iska yarayso maamada uurka lahana uureydaana iyadana sidoo kaleento haddii laga waayo oo kansalna u sameeyo aan ka wayno cudurka in maxaan ku dhahay iska ilaaliso meelaha goosaha laga bixiyo kaleento meel ay ka helaynin delivery safe delivery oo kaleento aysan ka helayn sida TBA oo kaleento iyo meelaha goosaha lagu bixiyo kaleento waxaasaan ka wacyigelinaa ka sokow dhibaatooyinka ay dadka aad daawateen iyo qaar kale oo badan oo ay noo suuragali weysay inaan la kulanno ay ku qabaan xanuunka ay la nool yihiin HIV/AIDS ayaa haddana walwalka ugu badan ay dadkani wajahayaan waxa uu yahay waxa ay kala kulmi karaan bulshada ay ku dhex nool yihiin kuwaasoo inta badan ay kala kulmaan takoor iyo weliba dhaleecin ku aadan xanuunka ay la nool yihiin HIV/AIDS gaar ahaan marka la ogaado in ay xanuunkaasi qabaan.